maalin wanaagsan ayaan idin leeyahay Axmed Xasan Ibraahim iyo Rooda Cabdi Xasan iyo dadkana daawanaya oo nagala socda social media iyo TV-ga intaba hadaa ka warbixiyo 24 saac la soo dhaafay xaaladda guud ee amniga magaalada Muqdisho waa mid iska caadi ah marka laga reebo hubiyaal xal lagu soo tuuray sida wararka qaar ay sheegayaan garoonka kubadda cagta Stadium Muqdisho oo shalay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xaraka ka jiray wararka qaar waxay sheegayaan in dadka ciyaarta tabinayay iyo dadkii dheelayay inta hubiyaal meesha lagu soo tuuray garoonkana lagu kala cararay sida guud magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya labadii maalin soo dhaaf sidoo kale weerar beesatay xaaladeeda amniga mid iska caadi ah 17 degmo ee gobolka Banaadir qaarkoodna qadka telefoonka kula xiriiray qaarkoodna saakay socdaal luga ku soo maray amnigeeda iyo jabigeeda wuxuu ahaa mid iska caadi ah waxa furan suuqyadii ganacsiga ee degmooyinka wadajir ee Dharkiinley iyo degmooyinkan Xamar Jajab iyo Waabari intaba degmooyinkaas isa saaran oo isku raranka ah sidoo kale waxa shaqeynaya goobaha bosteejooyinka oo laga raacay baabuurta ama gaadiidka BL-ka sidoo kale waxa shaqeynaya goobihii waxbarasho oo sida dugsiga quraanada walow iskuulada iyo jaamacadaha wali xiran yihiin oo amar dawladda hore u soo saartay ku xiran yihiin sidoo kale hadaa ka warbixiyo xaaladda caafimaad ee degmooyinka qaarkood asoo soo maray waa caadi isbitaalada iyo goobaha MCH-da oo dadka lagu daweeyo caadi u shaqeynaya baraha control ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ku sugan si amniga u xaqiijiyaan waxayna baarayeen baabuurta raaxada sidoo kale hadaa ku socdo barnaamijka dhanka hadalheynta dhalinyarada waxay hadlaysaa ciyaaraha shalay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu daahfuray garoonkii weynaa Stadium Muqdisho oo tuulada ciyaaraha lagu magacaabi jiray muddo dheerna burbur oo ka muuqday balse hadda u muuqda mid soo kabtay oo bilicdiisii iyo hanaankii oo lahaa la gaarsiiyay waxaana si gaar gacanta uga haysaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya oo hogaaminaysa wasiirad Khadiija Maxamed Diiriye waxaana lagu wadaa in koobabkii kala duwanaa iyo koobabkii dawladda Soomaaliya martigeli jirtay oo loogu imaan jiray dalalka oo Afrika oo nala jaarka ah in lagu qaban doono sidoo kale arinta hadalheynta oo dadka siyaasadda u dhunduleela ama gorfeeya oo meelaha shaaha jooga hadal hayaan waxay tahay arinta ku aadan maqaamka Muqdisho oo muddo dadka siyaasiyiinta hadal hayeen maadaama madaxweynaha furitaanka baarlamaanka oo labada aqal ka codsaday in matalaad rasmi ah ay shaqada Muqdisho arintaas dadka si gaar ah u hadal hayaan marka daawadayaasha inta barnaamijka guud jirno hadee warar iyo barnaamijyo soo kordhaan oo soo tabin doona waana idin mahad celinayaa Roodo iyo Axmed